dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay iyada oo la ilaalinayo danaha daris wanaagga ku dhawaaqaysaa in ay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Jamhuuriyadda Kenya. Dowladda Jamhuuriyadda Kenya waxay soo dhaweynaysaa tallaabadan lagu ilaalinayo danaha daris wanaagga ee labada dal. labada dawladood waxay ku heshiiyeen in la ilaaliyo xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal iyada oo lagu saleynayo mabaadi'da is-ixtiraamka ee madax-bannaanida iyo midnimada dhuleed, faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee labada dhinac, sinaanta wax wada qabsiga iyo nabad ku wada noolaanshaha. Madaxweynayaasha labada dal waxa ay amiirka dowladda Qatar uga abaal hayaan ugana mahad celinayaan dadaalka uu ka geystay arrintan. waa mahadsantihiin. wixii su'aalo waa idin furan yihiin. waa mahadsantahay Cabduqaadir. sida aad ogtahay arrintan horta ma ahayn dooq iska yimid. waxaad ogtahay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay la socdeen duruufihii keenay in Soomaaliya ay joojiso xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya ay la lahayd. marka dawladdu waxay arrintan ku bedelatay markii la xaqiijiyay in la joojiyay la iskuna afgartay in la joojiyo dhammaan ficiladii iyo muxuu ahaa arrimihii keenay in dawladda Soomaaliya ay joojiso cilaaqaadka muxuu ahaa diblomaasiyadeed ee Kenya ay la lahayd. marka mar haddii dhibaatooyinkii jira ay meesha ka baxeen sida ku qoran warmurtiyeedkana la isku afgartay in la is-ixtiraamo, daris wanaag lagu wada noolaado, danaha labada dalna laga wada shaqeeyo, sidaas ay arrintu ku timi. hadda halkan munaasabadda aanu joogno waxay ku saabsan tahay soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya. dabcan ma qusayso arrin dal kale kala dhaxayso Soomaaliya. marka mashruuca ama mawduucan ka hadlaynaa inta ayuu ku saabsan yahay. waa mahadsantahay. waa su'aal aad u wanaagsan. sida lala wada socdo qadiyadda baddu waxay ahayd qadiyad soo socotay iyada oo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ee diblomaasiyaddu uu jiro oo uu shaqeynaya ay soo socotay. markii uu hakadayna way socotay, haddana way sii socon doontaa. wax saameyn ahna kuma laha arrinta badda, sababtoo arrinta baddu waa arrin maxkamadeed, maxkamad ayay taallaa. marka wax saameyna iyo wax cilaaqa ah oo ka dhaxeeya arrinta badda iyo arrintan ma jiraan. maya arrintan waxaan ka hadlaynaa waa xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ka dhaxeeya. Kenya iyo Soomaaliya waa laba dal oo daris ah oo wax badan ay ka dhaxeeyaan. duruufo ayaa keenay in xiriirkooda uu istaago. duruufihii ayaa heshiis laga gaaray, sidaas ayaana heshiiskii lagu soo celiyey. arrimaha gudaha ee Soomaaliya waa arrimo u yaalla dowladda Soomaaliya iyo dadkeeda iyo dowladnimadeeda u yaalla, ma aha arrimo meel kala quseeya. waxaan rajaynayaa inaad dhuuxdo warmurtiyeedka halkan aan ka akhrinay. waxaa ku qoran cilaaqaadka labada dal la soo celiyay, hadda la soo celiyay waxa uu ku dhisan yahay iyo mabaadi'da uu ku fadhiyo oo ah in labada dal ay is-ixtiraamaan, dal kasta uu ixtiraamo, aan la faragelin arrimaha gudaha dalna uuna dalka kaleeta faragelin. marka sidaas ay arrintaani ku dhisan tahay. waa mahadsantahay. waa su'aal kaloo wanaagsan. dabcan hadda halkan maanta waxaan uga dhawaaqaynaa waa in cilaaqaadkii diblomaasiyadeed la soo celiyey. waxyaabo badan oo u baahan in laga sii wada hadla ayaa jira oo sidaad sheegtay arrimaha ganacsigu ay ka mid yihiin, arrimaha socdaalku ay ka mid yihiin, arrimo badan muxuu ahaa ay ka mid yihiin oo u baahan in wada xaajood dheeri ah laga yeesho. marka waqtigooda ayay imaan doonaan.
munaasabadan waxay ku saabsan tahay cilaaqaadkii diblomaasiyadeed ee istaagay in la soo celiyay wixii kaleeto oo ka dambeeyana marka labada dawladood xiriirkoodii diblomaasiyadeed uu bilowdo ayaa laga wada hadli doonaa dabcan iyadoo dal kasta uu danta dadkiisa